bismillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan sii wadan doonaa linuxkii kusoo dhawaada mar labaad. casharkan waa cashar aada iyo aada muhiima. waxaan kaga hadlaynaa qaybo fara badan oo linuxka ood baran doonto shortcutka iyo kamaanada la isticmaalo haddaad rabtid inaad master ku sameyso. magaca weeyaan qaybta ugu horeysa, qaybtaasi cilmi waa magaca userka. at waxaa ka dambeeya web server hyphen web server tmc cilmi, intaasina waa magaca computerka. so sidaas ayay linuxka loo bartaa. waxyaalahaas ayaa kamid a. markaa kamaano badan ayaan baran doonaa, xabad xabad ayaan inigu sharaxi doonaa si aad si fiican u fahantid. casharadan haddaad baratid waxaa kuu fududaan doonaa inaad noqotid nin black hat noqda oo waxyaalo badan ka barta shortcutska iyo kamaanada la isticmaalayo. marka waxaan odhan lahaa casharkan dhamaysta waa very important. linux waxa weeye qof kasta oo raba inuu noqdo network security amba it security wuxuu baahan linux inuu barto. so waa inaad kala fahantid qaabka loo sameeyey. so magacaas aad ujeedid cilmi waa usernameka. at wixii ka dambeeya web server hyphen dmc hyphen cilmi, intaasina waxa weeye waa magaca computerka. inaad saa u fahanta ayaa loo baahanyay. labada dot amba column waxaa loo yaqaana waxay kala saaraysaa waa celebrated. dollar sign ayaa inii muuqda. so inter haddaan taabto kamaanada ugu horeeya een baran doono ayaan hubinanaa. so waxaan ku qornaa pd, wuxuu ku tusayaa locationka aad joogtid. locationka aan joogno waxa weeye waa /home/cilmi. marka directory kolba aad ku shaqeynaysid amba meesha uu joogo userkaasi ayuu ku tusayaa. cd haddaan ku qorno cd waxaa laga soo gaabsaday directory change amba change directory ayay ka dhigan tahay. halka af soomaaliya inigu qorayaa si fiican u fahantiin. so directoryga marka la bedelayo ayaa waxaa lagu qoraa cd. so waxaad baranaysaa navigation adigoo mouse isticmaalaya inaad ku socsocotid kamaanadan oo tagtid kolba meeshii aad rabtid inaad wax ka bedeshid. waa change directory ayaa laga soo gaabsaday cd gaas. so hadda waxaan tegi doonaa file ayaan tegi doonaa oon tijaabin doonaa. haddaan mar labaad ku qoro meesha aan joogo, dad calaamada aragtid bdu waxay la mid tahay. waxaa nii macnaya si aad si fiican u fahantid because casharkani waa kind of a basic understanding inuu qofku fahmo qaabka loo isticmaalo command line interfaceka linux. cli haddaanad garin amba command line interfaceka haddii aanad aqoon u lahayn waxalla waxaad ka shaqeyn kartaa ma jiro. sidaa darteed marka waxaad u baahan tahay inaad waxyaalo badan aad ka ogaatid. clear ayaad ku qoraysaa markaad wax iska delete garanaysid. so commandkii ayaan mar kale ku celinay si aad si fiican uga bogotiin. oo waxaan ugu talagalay dadka aan deg deg hore ugu fahmi karin inay fahmaan. wuxuu ku tusayaa directoryga aad joogtid. marka cd ayaan ku qorayaa amba change directory. before intaanan ku qorin waxaan leeyahay ls, macnaha ls waa show a list, listiga iyo tus. wuxuu ku tusayaa failalka meesha kugu diyaarka. waxaad ujeediin desktop capital iyo small letterna waa very important. kamaanka waa iska kaleer garanaynaa. intaa markaan ku qorno cd ayaan mar labaad qoranaa desktop directorygaas. desktopka ayaan teganaa. waan joognaa hadda. so waxaad ujeedin /desktop iyo dollar sign. haddaan markaan idhaahno ls waa show the list. so show the list haddaan idhaahno wuxuuna tusayaa desktopka waxyaalaha ku jira. desktopka waxaa ku jira commands file la idhaahdo, firewall file la idhaahdo, test file la idhaahdo iyo untitled document. afartaa ayaa ku jira. dib haddaad rabtid inaad ugu noqotid waxaad ku qoraysaa cd space
forward slash wuxuu kugu celinayaa kaasi markaa userkii ayuu kugu celinayaa, userkii ayuu meeshiisii ku geynayaa. So cd spaceku waa very important, spacekaasi waa very important. cd space for calaamadaasi frontiga in lagu qoro. markaad intaas samaysid wuxuu kugu celinayaa meeshii hore aad joogtay ayuu ku geynayaa. si meeshii hore lagu geeya markaasi cd waxaan leenahay change director documentigan tagana. hadda spelling error ayaa dhacay. so spellingku hadduu kaa qaldamo waxaad arkaysaa no such file oo directory ayaa kusoo baxaysa. so always waxaad iska hubinaysaa spellingka iyo inuu folderkaasi jiro amba directorygaasi jiro. so haddaan mar labaad qorno documents cd weli error baa jira, sababtoo ah spelling error hadduu dhaco saas ayaa kugu soo baxaysa. so waan iska nadiifinaa si aan u hubino in wax walba aan kasoo bilowno xagga bilowga ah si aad si fiican u aragtiin. waxaan leenahay cd home ayaan tegaynaa. ls baan leenahay. home waxa kaliya oo ku dhex jira only one user, macnaha waa root folderkii. userkaasina waa cilmi oo saad u jeedtiin fartu waa blue color. cd cilmi haddaad sii tagtid wuxuu ku tusayaa ood list tiraadid wuxuu ku tusayaa faylalkaan haysano. so waxaan haysanaa desktop, documenti, downloading, mid aan u bixiya heeso, music, public, qaar aan samaynay oo casharadii horaan kusoo qaadanay, somali, new files. so ku documenti saas ood u eeganaysaa markaa. cd documents hadda waan joognaa. waayo marka hore spellingka ayaa inaga qaldanaaba laga yaabaa. haddaan markaa documentigii dhex tagno oon ls ku qorno waxaad u jeediin inay inoo soo baxday t1, t2, t3, test iyo test kale. macnaha laba file ina faylaka ku dhex jiraan. markaa waxaan kasii tegaynaa t1 baan sii tegaynaa. commandkii waxaan ku qornaa cut space baan baxanaa. calaamada ka weyn ayaan qoranaa. kadibna waxaan ku dhex sameynaynaa qoraal ayaan ku dhex qoranaa. qoraalka markaan ku dhex qorno ayaa hadhow qoraalkaasi wuxuu kasoo dhex bixi doonaa faylka t aan qornay ayuu ku dhex jeli doonaa. waan hubin doonaa. so waxaan ku qoray waa ii samee macnaha amba waxbaad iskaga qoraysaa. amba waxaan ku dhex qornaa tijaabo amba file waxaan sameynaa la idhaahdo tijaabo ayaan ku dhex sameynanaa. cut file tijaabo ayaan ku dhex sameynay. faylkii t1 ayaan leenahay ls. waad arkaysaa file ayaa inoogu sii dhex jira la idhaahdo tijaabo ayaan ku dhex sameynay. aan u bixinay saad u jeediin. faylkii tijaabo ayaa inoogu dhex jira. so waxaan leenahay cd tijaabo. faylkii tijaabaan dhex tegaynaa. waliba directorygaasi lama yaqaan ee iska saxa. mar labaad baan ku celinaynaa. waxaan leenahay cd two column waa dib ii celi macnaha. hal mar ayaad noqonaysaa one time haddaad rabtid inaad dib u noqotid oo folderkii kan ka horreeyay ku noqotid waxaad ku qoraysaa cd space dot isdaba yaala. so wuxuu kugu celinayaa faylkii kan ka horreeyay ayuu gadaal kugu celinayaa. so halkaasi af soomaali baan iigu qoray iigu celi amba iigu celi directorygii hore wey macnaheegu. saas ayaad sameynaysaa. markaad intaas samaysid haddaan idhaahdo haddana dib ii sii celi wuxuu kugu sii celinayaa home buu igu sii celiyay. so cd space waa very important dot inaad ku qortid.
cd na waa la iskaga qoraa isagana waa ku geenaya cd slash na wuu jiraa. haddaan iminka idhaahdo pwd wuxuu ku tusayaa directory aad joogtid, kolba meesha aad joogtid ayuu ku tusaya. waa very important. so cd 2 haddaan idhaahno gadaal ayuu ku celinayaa. ls haddaan idhaahno waxaad u jeediin in userkaygii waxyaalaha ka dambeeyaan arkayo, sida bin faylalkii ay iska lahayd ubuntu linux ay meesha ka muuqdaan oo kala duwan. sida temporary ayaan hadda rabaa inaan tago. temporary waan dhex joogaa faylkii. haddaan ls idhaahdo ls show the list ama listiga i tus, faylalka ku dhex jiro i tusaya. so faylalka ku dhex jira waad ujeedin faylal kala duwan ayaa ku dhex jira. vmware cilmi baa ku jira, vmware root baa ku jira, waad ujeedin faylalkaasa ku jira. so mid kamid a haddii aan doorto, for example oon doorto one of those files, faylalkan mid kamid a aan idhaahdo dhexgal, waxaan ku qorayaa vmware. spellingku waa very important. hadduu spellingku kaa qaldamo waxba kuma hagaagayaan. waad ujeediin wuxuu leeyahay permission ma lihid faylkaasi. so waxaad ka horeysiinaysaa sudo, iyadana spellingkeega iska saxasaa, iska masaxasaa. waxaa leedahay sudo. waxaan eegaynaa bal inaan laynoo geliya faylka inaan dhex tagno. sudo cd vmware root, wala password ayuu ku weydiinayaa. so sudo waa super user command. commandkaasi waa very important. passwordkii waan gelinay, waxaa wax lasoo helay ma jira wili. marka faylka waxa weeyaan caynkaa u eg. permissioniska ayaan kaga hadli doonaa. haddaan permission aad faylka u lahayn oo other user uu leeyahay permission, wuxuu ku odhanaya permission deny. so waxaad baratiin marka la sameynayo linux commands ama permission kala duwan yahay, amba commandkaasi uu yahay command wax ka qaldan yihiin, uu ku sheegay qalad hadduu dhaco. haddii feedback aad weydidna wuxuu ku odhanayaa wax kasta waa okay. so sidaad halkan uga jeediin, command kane wuxuu la mid yahay command kale oon idin tusi doono, amba windowda loo isticmaalo. so for example halkan hadda aan joogna waxa weeye waa sida cd amba windowda waxyaalaha loo yaqaano c drive. for example drive-yadu waxay leeyihiin c drive. c drive waa meesha windowda faylalka ay dhigato oo kale ayuu u dhigmaa hadda meeshan aan joogno. so c drive-ka in window marka la joogo oo kale weeyi ayuu la mid yahay. so iska masaxanaa. hadda wuxuu leeyahay commandkaasi lama aqoonsan, command jira maaha. marka waxaan leenahay cd space ayaan baxanaa si aan gadaal ugu noqono. okay, commandkaasina waa la mid, cd space /. haddaad tirahdid isagana wuxuu ku celinaya gadaal, amba xaggii dambe ayuu kugu celinayaa, amba qaybtii dambe. darbina dib u sii noqotay ood ku qorata. haddana waxaad oranaysaa itus meeshan jooga. hadda meesha aan joogno ood ujeediin /. waa jooga. calaamadda haddaad aragtiin waxa weeye waa root. macnaha hadda waxaad joogtaa rootkii ayaad joogtaa, amba meeshii userka. so always calaamadda ilaali. calaamadda slash keligeed haddaad aragtid /. macnaheygu waxa weeye waxaad joogtaa user rootkii. waa inaad si fiican u taqaani calaamaddaasi, because hadhow markaan sameynano black hat amba markaan sameynano presentation testing waa inaad taqaanid calaamadahan.
haddii aanad fahansanayn calaamadahani hadhow you struggling inaad ku shaqaysid pronunciation testing markaan isticmaali doono Kali-Linux cashiradeena inoo soo socda ama trainada inoo soo socda. So calaamadaasi saan usoo sheegnay macnaheedu waxa weeye waa root ayay tilmaamaysaa amba waxay u dhigan tahay C drive in Windows. So taasina waan baranay, very important inaad taqaanid. So root waxaa loo adeegsadaa calaamadaasi adeegsiga root meesha waxaa joogtaa meeshii rootka ee wax walba faylalka oo dhan ay ku jireen ee waxba ka dambeyn, macnaha waa jiridii geedka. horana waa jirid amba meeshii geedka uu ku taagnaa weeyaan. qaybtaas weeyi. haddii markaa aan kusii soconno oon qorno cd, waayo navigationka waa very important. navigationka waa inaad ku socsocod taqaanid sida loogu socdo. cd iyo calaamadaasi haddaan qorno waxay ku geynaysaa isla meeshii aad rabtay. calaamadaasi waxay ku geynaysaa meel kale oo meeshii aad rabtay ah, sida home oo kale ayay ka dhigan tahay. home igee haddaad leedahay, for example home directoryga igu celi haddaad leedahay waxaad qoraysaa cd iyo calaamada yaree maska weeg. kaleer ayaan ku qornaa. cls waxaa loo isticmaalaa command line-ka Windowska. Linux oo dhanna kaleer ayay isticmaashaa. So hadda waxaan leenahay cd waxaad igeysaa document igee, list itus waxyaalaha ku dhex jira, t1 isigee, waayo waxaan ka ilownay cd inaan ku qorno. waa in idhaahdo cd t1 wayna geeyey, ls baan leenahay file kaloo tijaabo ayaa ku dhex jira. markaas saas ayaa loo baahan yahay inaad faylalka kolba mid usii dhex tegtid si aad u furfurtid adigoo mouse isticmaalayn oo command line isticmaalaya. sababtuna waxa weeye command line-ku waa ka dhaqso badan yahay. haddaba meeshaan joogna waxa weeye documentii ayaan joognaa. waxaan kasii joognaa t1 fileka la idhaa. waxaan kasii joognaa tijaabo kasoo qaad. hal mar ayaan noqonay, dib ayaan uga sii noqonnaa halkaana. mar kale ayaan waxaan u baxanaa dib ayaan u baxnaa mar kale. so cd calaamadaas waxayna tusaysaa marka calaamadaasi amba ay ka dhigan tahay waxaad igu celisaa home directory igu celi weye. home directory ayuu inagu celiyey. kaleer baan leenahay. meeshan haddaan joognaa waa home directory. so waxa desktop kuma jirno, documenty kuma jirno. okay, so home directory ayaan joognaa saad hadda ujeedin. sudo haddaan ku qorno, for example sudo command, waxyaalahan ayaa ku available. iyagana waan baran doonaa cashirooyinka inoo soo socda. sudo inta badan waxay ku siinaysaa super user. okay, clear ayaan iska leenahay. waxaan rabnay sudo inaan nidhaahno, kadibna fileka aad rabtid permissionkiisa ayaad ku qoraysaa. so hadda cilmi ayaan ku qornay filekaas, file jira ma ahayn. haddaan markaan nidhaahno cd kadibna space aan baxno, kadibna backslash aan nidhaahno, waxay nagu celinayaa home. so imika home ayaan kasii dooranay.
ls baan idhi hal user oo keliya ku jira oo la idhaahdo cilmi. haddaad markaa pwd aad ku qortid /home ayaad joogtaa baa lagu leeyahay. macnaha rootkii home baad kasii joogtaa. okay, so waxay ka dhigan tahay qaybtan ayaan macnayn doonaa. qaybtan waxaan ku baranaynaa sida loogu noqdo rootka amba loogu noqdo homeka ayaan ku barananaa. so kamaanadaas waa kamaano aada iyo aada muhiima. waxaan kaloon ku baranaa navigationka amba sida loogu socdo command line interface adiga oo isticmaalaya Linux commands. kamaanadan haddaan isticmaalnay waa kamaano u khaasa only Linux adigoo isticmaalaya Linux terminal amba command line-keyga. meeshan aan ku qorano waxa loo yaqaanaa terminal amba waxa laga soo gaabsaday CLI command line interface. asaa u taqaanay CLI haddaad maqashid waa kamaano markasta lagu shaqeeyo. sababtoo haddaan internet idhaahno hadda ma garan meesha ka yimiday kaleer ayaan iska leenahay. markaa kaleer nidhaahno waxaa inoo soo baxaya macnahaygu waxa weeye waa iga masaxday kaleer saad usoo barateen amba iga tirtir waxyaalahan aan u baahnayn amba iga nadiif iga xaaq wey. kamaan aada iyo aada importana. kaleer waxa u dhigma in Windows CLS cideena Windows soo qaadatay. so wax kasta ood qoraysid amba qof aad wax u sheegaysid haddii aan communication ku samayna halkan for example oonan hadlayn oon rabo inaan qoraal wax iniigu sheego weedha kaleer ayaan ka horreysiinayaa kadibna waxaan ku qorayaa waxyaalaha aan rabo. akhyaata channelka ku xidhan aada iyo aad baad u mahadsan tihiin sidaad noola socotiin. waan iga mahadnaqayaa. meeshan waxaan ku baranay kamaano kala duwan. markaa qeybaha soo socda insha allah la socda. haddii aragtiyo iyo common iyo fariimo aad qabtiinna waxaad iigu soo qartiin qeybta commonka ee bilow. waxaa kaloo aan aad ka ilooban insha allah hadduu idhaha casharkaan jeclaatay like saar share garee channelka haddaad ku cusubtayna la wadaag asxaabtaada dhammaantood siina faafi muuqaalkani si uu dad badan u gaadho oo uga faa'iidaystaan. waxaa loogu talagalay dhammaan qof kasta oo jecel Linuxka inuu ku shaqaysto hadduu ilaa idhahdo insha allah. anigana subscribe-ka iyo like-ga iyo comment-ka wuxuu ka caawinaya channelka inuu koro oo aan dhiirigelin aniguna helo si casharo fara badan aan usoo geliyo ood iniguna uga faa'iidiin. waxaan ilaahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin. casharo kale insha allah waan soo gelin doonaa hadduu ilaahay idhaahdo oo ilaahay waqtina siiyo insha allah iyo caafimaad. waxaan leeyahay commonka soo qora ka caajisina ila wadaaga wixii aragtiya iyo wixii fariimo ah si aan usii wadno insha allah. Linuxka waxaan rabnaa inaan meel sare ka gaadhno isaga oon Soomaali inigu qeexaya insha allah. qaybo kale oo xiiso badanna way soo socdaan insha allah hadduu ila idhaahdo. leenahay waa mahadsantiin dhammaantiin. والسلام عليكم ورحمة الله.